بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله موضوع ما أنت عنوانك سو حواية إيش وسواسك جيردة. موضوعا وموضوعية خطرسن أو ماركتي قفك وسواسك كود عايو. inkastoo waswaaska noocyaal badan oo jiro noocan wuxuu soo galaa nooca labaad nooca ugu horeeya waxa waaye waswaaska caqiidada oo qofka la rabo in diinta laga saaro kana number 2 noqonayo number 2 uu noqonaya sababtiisna haddana ogaanaynaa insha Allah sidoo ku noqday number 2 horta sida runta Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkan wuxuu qoray oo maaragtay oo waxa uu yahay wax thaabit oo asal ah in kullu nafsin in dhiman doonto kullu nafsin dha'iqat al-maut hatta malak al-maut naftiisu uu dhimanayo markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhahay liman al-mulku al-yawm markii qof waliba oo dhinto malaa'ikada ay dhintaan jibriil oo dhinto malak al-maut oo dhinto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana al-mulk ayna al-muluk li Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka qof noolaana adduunkan ma jiro qof waliba uu dhimanayo kullu nafsin dha'iqat al-maut nafsad waliba ma aragtay waxay dhadhaminaysaa wir Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhimashada marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis waxa laga soo wariyay oo dhahayo man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaa'ah wa man kariha liqaa Allah kariha Allah liqaa'ah qofki Ilaahay subhanahu wa ta'ala la kulankiis jeclaado Ilaahay wuu jeclaano inuu qofkaas la kulmo qofki نعبن أو أن ربنا إنه إلهي لكل ما قف كاس إلهي سبحانه وتعالى لما كل ما أو إلهي مجعل إنه لكل من إلهي سبحانه وتعالى مركز عائشة رضي الله عنها مركو حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وشيء جاي عائشة يا أكفر صلى الله عليه وسلم وحيتر يا رسول الله يا نبي الله أكراهية الموت وحك هذا اللي سايتر يعني لما شذ النعيب كذا فكلنا نكره الموت وكلنا نكره الموت كل جين أنا بحي بني آدم أولاً كل جين ونعبنا هي تري لما شذا ليس عن هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك يا عائشة رضي الله يا عائشة مركو حوير النبي عليه الصلاة والسلام ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه وجنته أحب لقاء الله مركي وحوكاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام مركو خفكن أو لقاء ذا روحه marka qofka mu'minka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u diyaariyay radwaanka Ilaahay raali inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka yahay oo arkaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u diyaariyay jannada u diyaariyay nooc ay tahay markuu arko Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu jeclaanaya inuu ma aragtay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala la kulmo ninka gaalkan waa the opposite way qofka gaalkan markuu dhimanayo wuxuu nacaya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala la kulmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu nacaya inuu gaalka naftiis oo la kulmo marka waa maxalaamooyinka lagu garanayo qofka maaragtay oo cabsida ku jirto dhimashada waxa ugu muhiimsan waxa waaye waxaad arkaysaa qofka waxa u badan riyooyinka oo dhimashada qof dhimanayo arkaya dad dhimanayaan oo arkaya badana wuxuu arkaya dad dhintay hore u dhinteen oo familigiis ka mid ah ayuu arkaya waxaa kaloo lagu arkaya qofkaas in uu ka cabsado ma aragta macsiyada waana fiican tahay waxaas inuu macsiyada ka cabsado
laakiin wuxuu leeyahay macsiyadan haddaad samayso maantad dhiman doontaay naartad galaysaa. waxaa kaloo uu ka cabsanayaa albacath walxisaab. ilaahay subxaana wa tacala maxaad la hortagi doontaa, waad dhimanaysaa, maantad dhimanaysaa, ee maxaa ilaahay u sheegi doontaa, waxaasaa samaysay, waxaasaa samaysay. wixii oo sayi'aadka iyo macsiyada uu samayn jiray ayaa lasoo xasuusinaya. waxyaalaha kale oo ku kicinaya waswaaska zaa'id ugu noqonayana waxa waaye markuu qof asaga ahalkiisa ka mida dhinto asoo joogo. yacni qof ayaa dhimanaya, mase qof dhintay oo saaxibkiis ah ayaa loo soo sheegayaa maanta. marka maalintaas waxaad arkaysaa ziyaada ayuu ku noqonayaa waswaaska dhimashada, waswaaska geerida. wuxuu qofkaasoo kale uu dareemayaa daa'iman mar waliba inuu jiran yahay ayuu dareemayaa, oona dhimashada ay ku soo socoto. marka xataa waswaaska wuxuu shaydaanka u imaanaya, aniga wuxuu leeyahay aniga waxaan kaaga cabsanaya inaad maanta dhimato, lianna diyaar ma tiid adig. maxaa haysataa? waxaad haysata male, waxaasaa samays wixii sayi'aadkii oo dhan ayuu usoo tirinaya. maanta hadaad dhimata waa naartad galaysa adiga, shaki kuma jiro horta. maanta hadaad dhimata maaragtay naartad u socotaa, lianna waxaa tahay nin faasiq ah, nin faajira tahay, xataa islaamnimadaada wax kama jiro. saasuu u leeyahay. marka wuxuu kaloo isku arkayaa waxaa kaloo lagu arkaya qofkaas wax camal khayr ah maaragtay ma samaynayo. adduunkiis wax uma samaynayo, aakhiriisna wax uma samaynayo. waxaad arkaysaa waxawaa qof dhintay oo socdoo noqonaya. camal oo maanta oo maaragta oo faa'iido leh ma samaynayo. ha shaqa ha noqoto, waxbarasha. wuxuu leeyahay maxaad ka shaqaynaysaa? waaba dhimanaysaa. war iskuul aado, iskuul maxaad ka aadaysaa? beri baad dhimanaysaa. ma hataa dad waxaa dhici karta hal sac kadib inaad dhimato. waxaad arkaysaa yacni wax waliba oo raba inuu ku dhaqaaqo, dhimashadii ayaa waxa loogu dhigayaa big deal, wax weynaa loogu dhigayaa. naafay ka dhigaysaa marka. wax ma qabana adduunka, wax ma qabana aakhirna. salaada xataa maaragtay waxaa dhici kartaa inuusan aadin. waxaa kaloo lagu arkayaa wasankiisu asdhimaya. yacni waxaad arkaysaa caata ayuu noqonaya, caata wax naafa ayuu noqonaya, lianna murugtii ayaa ku badanayso, cabsidii ayaa ku badanayso. habeenka asoo jiifo mise iyadoo jiifto ayay sariid ka soo boodaysaa. bum araale gu akhriyo, war yaasiin kale saar, waa dhimanoyaa. cayda dhan oo hurd jiifana ala kicinaa, waa rafanayaa, dhulku isku tumayaa, waan dhimanoyaa, bis waay aniga. qur'aana la saaraayo. waxaad arkaysaa maalin dambe asoo caadi u socda. wuxuu kaloo dhibsanaa in meel looga sheekeynaya dhimashada inuu fariisto ma jeclo. meel dhimashada loogu sheekeynaya inuu fariisto ma jeclo. cariiriyoo dareemaya, wixii baa korkiis kusoo kacaya, wuu dhididaya, wuu naxaya, wuu cabsanaya. salaadana wuu ka tagaya. salaada lianna bacd alaxyaan salaada aayadooyinka la aqrinaayo waxaa dhici kartaa inuu aayaat almowt inay tahay dhimashada. marka salaad wuu dhibsanaya, salaada ma aadaya, salaad o dhan uu ka tagaya. wuxuu kaloo dhibsanayaa meelaha maaragtay in oo maaragtay qubuurta inuu aado. meesha qubuurta inuu aado, qabriga hadduu aado, waxa waaye waxyaalihii baa ku soo kacaya, cabsiya ku abuurmaan, weyshaana ku dambayn doontoon, godkaana lagu gelinayaa, keligaa baa noqonaysaa. munkar wanakiira ku imaana, intaysan ku imaanin waxaad maqli doontaa dadkii oo maaragtay cagahooda socodkooda maqlaysaa. waxyaalahaasoo dhanaa lagu soo furaya markuu aada meesha qabriga. wuxuu kaloo dhibsanayaa wax waliba oo asaga dantiisa ku jirto inuu sameeyo. maanta maxaa qabata dil oo su-aashaas wuu dhibsanayaa. maxaad baratay? lianna wuxuu leeyahay aniga waaba dhimanaya, maxaan qabanaya? waaba dhiman rabaya. faa'iidada maxaa? waaba dhiman waya, beriyaan dhimanaya. subxaan allah. marka maxaa cilaaju ah? qofka saane maxaa cilaaju ah? cilaajka hadda korna waan kusoo sheegnay ishi iyo waswaaska dad u noqotid. waxaan sheegnay qofka inuu waxaan isdhaga tiro waay, inaad isdhaga tirtid waay. mar waliba maaragtay markii waswaaska dhimashada ee kugu yimaado inaad daa'iman positive u bedelitid waay. haddaan dhintayan ilaahay subxaana wa tacaala alraxiim arraxmaan aan la kulmaya, naxariista ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay baan u xiisabay inaad dhintaan barawaaba aniga. aaw dhimashada la sheegaayo maxaa aniga aan sameeyey? nin muslim ma ah, mu'min ban ah. haddaan dhinto ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiis ayaa la kulmaya. marka mar waliba adiga the opposite way inaad waxaa la rabaa inaad khayr aad u badishid. meeshay sharci ahaan lahayd khayrna u badishidaa la rabaa. sidii shaydaanka uu albaab kugu soo furin. lianna waxa waaye shaydaanka wuxuu rabaa in aan adiga ay ku ahaato waxaan shay oo maaragtay oo musharac inuu kuu noqdo, inuu asaga wax waliba kuu saxuu rabaa.
marka waxaad baranaysaa inaad kala saarto waswaaska iyo adiga hadalkaaga miya mise waswaaska waay haddaad duruusta inaan kusoo celceliya ma jecli darsiga waswaaska iyo ish iyo waswaaska haddaa u noqotid waa fahmaysaa inaa waxaan waswaaskan inaadan adiga ahayn oo shayddaanka oo kugu ma aragta oo kugu qancinayo oo rabay inaad waxaan aad ma aragta aad ka dhigato wax oo daa'iman ku daba socdo oo aad ka fikirto oo maskaxdaada uusan ka bixin mar waliba waxa waaye hadda ilaaha yani su'aalaan ku weydiinaya aniga su'aalaan ku weydiinaya waswaaskan dhimashada meeqa bil ka hor mise meeqa sano ka hor kugu bilowday meeqa isbuuc ka hor kugu bilowday waxaad dhici kartaa hal bil ka hor inuu ahay hal sano ka hor 10 sano ka hor inuu ahay ilaa ay hadda waad nooshahay maxaad u dhiman wayso su'aashaas ka jawaab maxaad u dhiman wayso ilaa hash waa nooshahay shaydaanka mar walba wuxuu ku leeyahay bari bad dhiman doontaa maxaad ka qabanaysaa waxaan maxaa iskuulka aadaysaa maxaad ka shaqaysanaysaa war maxaad ka dukanaysaa salaadaada lama aqbalaayo qur'aankaaga waxa waaye lama aqbalaayo maxaa oo kuu taraa naartaad u socotaa adig saasuu ku leeyahay marka maxaad u dhiman wayse ma dhiman waa nooshahay weli waa socotaa marka waxaa la rabaa inaad barato sidaad ma aragtay waxaan iskaga celin lahayd la daa'iman khayrka inaad ma aragtay inaad u badashid waayo waxaad kaloo isku arkaysaa yani waxaa kaloo la rabaa inaad ma aragtay inaad badiso ذكرك إلهي سبحانه وتعالى قرآنك إنك بديسو لماذا؟ لأن جعلك إلهي مركو قلبك هذا صوغلو لما شرك بعبسنيس لأن واحد أكتهي خيرك أتسوب بسي أجرك بدن أتسوب بسي وحن ليدا هدان انت ما أنت أنا نفسي دي مرتاح بانك الحمد لله وان دكتا وان صوما قرآن كي وأخرستا صدق وان بحثدا فمليجي وان أوجا هويدي دي أبيه وحن وأهي ماركتي باريان وأهي أهلكي وان جعلها دتكي وان جعلها خير بان سمايا هدان انت محاد باه هدان انت دتكو أن ويد من عياني أنا ما أدوك ونولانا ما يوا marka daa'iman waxa way waxyaalaha khayrka adiga adduunka aad ku sameysay daa'iman inaad maskaxda ku soo celisid way aad kala saartid waxaan inoo waswaas yahay inoo adiga ba aragtid waxaan ka soconin waxaan sheedaanka inuu yahay inaad ogaatid way badanaana dadka isha ku dhacda ayaa waxaan u badan al-ayn al-hasida markay tahay ayn hasida markay tahay ayay u badan tahay dadkaan waswaaska ku badan marka dhimashadu daa'iman soo xasuusanaa qof dhintay soo xasuusanaya wuxuu leeyahay maanta ku dhamaanaysa hal saac kadib wad dhiman doontaa oo leeyahay sheedaanka waxa soo dhan wuu ka dhaadhacsiinaya qofkiin waxaad arkaysaa hal sano 10 sano meesha hortaadu taagan yahay wali ma uusan dhiman marka waa inaad aqal isku yeeshaa aad indhaha kala furtaa oo mar waliba ma aragtay markuu kor soo aado waswaaska khayr u bedel hadan dhintan maxaa dhacaya aan dhinta hadaba aan dhinto saas leeda ilaahanku aan la kulmaa arrahmaan arrahiim أن يلا كل ما يا مركب وحواي لما شذنا قف بدبادة ماله قف بدبادة النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق وارنتي أشرف الخلق وارنتي صلى الله عليه وسلم مرك أنا قام مرك نورانين ما يوا مرك إلهي سبحانه وتعالى أدوك وحو أسمي إن أيدتك أي إنتان قف نوران عين ماله مرك وحواي وحبا يا لقى عبسينين لما شذا وحبا ما أردت مسكح هذا أسكيجا ما أردت هكون مشغولين خير كاجا سمي سكولكاga aad shaqadaada aad waxay adduunka qaban lahayd qabo wixii khayr aad sameyn lahayd sameey mar waliba ma aragtin khayrka isku bedel qalbigaaga khayr u sheeg waxaan tartiib waxaad arkaysaa in oo ma aragtay oo ka baabaahay ignoring is ilowsi maskaxdaada ka saar quraankaaga badi dikrigaaga badi waxa iska dhigtaaba qof oo dhimashada diyaar u ah anytime hay hadaan dhigto khayr ilaahay an la kulbay subhanahu wa ta'ala marka insha Allah darsiga gaabna saas ayaa maanta ku soo gabagabeynaya waxaan rajaynayaa insha Allah laana maalmahan aad ay su'aashan igu soo badatay oo dadka ka sheeganaya dhimashada cabsida ma aragtay dhimashada ay ka sheeganayaan marka waswaaskan insha Allah waxa way waa nooca ugu adag wuxuu imaanaa al-martaba thaniya yani waswaaski ma aragno aqeedada kana ku xigo oo asagana waxa u baahan qofka ma aragtay in wuxuu ka fariisinaya adduunku wuxuu samaysan lahaay oo dhan oo ka fariisanaa aakhirna wuxuu ka samaysan lahaay dhan oo ka fariisanaya marka insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta kulligood wixii oo jiradan ka sheegana ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ha siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibka ha ka qaada insha Allah subhanaka Allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh